واي مقعه يا مشتاق عبد الله ما قبل هذا على الأول سيالك بلاد من ما يستلمس هذا هو بلاده ما شاء الله أورك أنت سيد واحد كمبيوتر إيه واحد دكتور موتك تي هذا كور رسو بش عم يقول كوتاي سقالي كوتاي ما هنو واحد ما يستطيع محاضرين مركادي محاضرين قلبت مع الوقفتان من الصبح دي habeenkii lagu qabtaa hadda maanta xanuun dareemay waa abaal ciidan iyo howlaan erey lagu koobi karin sheegistooda taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sifayntii bariisha kadib wuxuu u iladay soo celinta noloshii hore ee deegaanka waxaana maanta bariisha la gaarsiiyay adeegyo caafimaad dhaqaatiir raashin iyo agabyo kale deegaankan bilooyin ka hor laga saaray argagixisada ayay wax kasta ka qaraabiyeen qawaaristu waxayna qaar ka mid ah shacabka oo ku soo guriyo noqday deegaanka ay wajahayaan xaalado adag oo deegaan nololeed iyo tan caafimaadba aniga shacabaan ahay gurigeyga waa iga burburay meelan afka aadi waa la ahay 9 bilood baan waxaan ku maqnaa ceelasha ijaar waa soo awood waayay tubo biyo raashin ilmihii ceelasha ugu soo tagay anaga waa isku dhawaataysannahay guriyaalkii waanaga gubteen aqoomana haysanaa wiil oo aniga dhale urudkeeda ah iga dhintay aqoon tuman iyo law ruuxa ii dhaafay kuwaas ay joogaan hadda wax aniga ku dhisaayna ma leh waa iska dhawaataysannahay beledka dhamaana bugubte inaa nolol gargaara rabnaa si uu taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalin uga qaato xalinta baahiyaha shacabka ayaa maanta waxaa deegaanka la gaarsiiyay raashin daawo iyo dhaqaatiir caafimaad kuwa oo daaweyn u sameynaya hooyooyinka caruurta iyo waayeelka jilicsan dhaqaatiirtan caafimaad ayaa baaritaano iyo daaweynba u sameeyay dadka rayidka ah oo ay ku jiraan hooyooyinka uurka leh oo ah dadka ugu nugul ee u baahan daryeelka caafimaad kumana sii jirto marka ay ku nool yihiin deegaan ay burburiyeen cadowgu wax kastana laga sugayay gacanta ciidan ee isxilqaanka ah magacaygu waa Dr. Maryan waxaan ahay dhakhtarada haweenka waxaan inta ugu imid bukaano badan oo uur leh qaar oo dhiban qaar infectionaad qabaan qaar aad u cabanayaan oo maxaa la dhahay aan computer aan u sameeyay hooyooyin waxaan arkay computerka markaan u sameeyay oo dabakeen ah oo bishoodana dhowdahay waxaan ku dhiirigeliyay inay socod badan sameeyaan ee socdaan si cunugooda uu madaxkeen u noqdo madaxa hoggaanka isku xirka shacabka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Simig gaashaanle sare Iimaan Maxamuud Cali oo soo agaasintay adeegyadan la gaarsiiyay deegaanka Bariire ayaa xustay muhiimadda taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u leedahay ilaalinta shacabka iyo ka jawaabista baahiyahooda asaasiga ah iyadoo sheegtay in naf iyo maalba uu taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku bixinayo dhamaystirka baahiyaha shacabka ee ka jira deegaan kasta ee laga saaro cadowga sida Bariire qorshe ugu weyn amaanta u socon waxa waaye inaan qorshe diyaatar oo deegaankan wixii xataa adeeg nadaafadeed inaan galno si deegaanka sidiisa hore si ka qurux badan inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay idmo kole dad oo hawshan igala wadayna way la socdaan intaan hawshaas ku mashquulsanahayna xoogaar waxaan saaran adoo gacan maran oo waxba sidin dadkii shacbiga ha u taganina marka kole maanta raashin yar oo aan qoysaska wax yar aan ku talagalnaa waa sidnaa insha Allah sidoo kale to dhaqaatiirna waa wadnaa maalin dhaweedna waa la sheegay isbitaalada dhaqaatiirna ni yimaadeen kuwa kale haddana wayna la socdaan daawooyin aad u foorta fiican way sidaan maalin dhaweedna waxaan ka imaaday Owdigle waxyaalaha cabashooyinka aad la sheegay waxaa ka mid ah daawooyinka daawada qaar la bixinayo ma ahaan qaar xataa arbana meeshan ugu tagno si markii berito maamo culays yimaadaan haddii dhaqaatiir nagu jiraan xoogaar ka kaalisiyaal kaba si fiican umulusooyin haddii nala socdaan nila joogaan kaba si fiican oo waxaan sidna alaabahaas xoogaar oo adeegahaas arbana nila soo wadaagno caruurteenana waxaa u sidnaa xoogaar oo dhar iyo alaab lagu ciyaaro wax ciyaartooy ma nagu jiraan banooni iyo ciyaar yaa ma ciyaartiin ma hubtiin ma sha Allah ayakana kale wax yar oo ilmaha oo xoogaar lagu meel daalo waa sidnaa laakiin hadafka ugu weyn amaanta u socdo waxa waa horta in idinka niga dhigeysto wixii baahida waxa isdahaysiin aleela meeshaas culayska ugu weyn naga haya ina ila wadaagtiin si at least aan xoogeeni awoodaheena tabarteena dawaad garanaysiin waa iska yartahay laakiin wixii tabarteen meeshaas ku aadi karno inaad idinka naftigiina la soo wadaagtiin madaxa hoggaanka Simig gaashaanle sare Iimaan Elman oo sidoo kale kormeertay deegaanka Bariire ayaa xustay in taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
uu kaalin ka qaadan doono dib u dhiska guryihii shacabka uu cadowgu horay u burburiyey iyadoo sidoo kalena la dayactirayo ceelashii deegaanka oo ay argagixisadu horay u duugeen. Bariire oo ah deegaan beereed ay argagixisadu ka dumiyeen buundadii sahlaysay isu socodka iyo kaabayaashii kale ee deegaanka waxay hadda ku jirtaa dib u kabasho, wuxuuna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xil iska saaray in bulshada rayidka inay helaan adeegyadii ay u baahnaan lahaayeen haddii ay noqon lahayd biyo nadiif ah oo la cabo, raashin iyo daawo hadba intii karaan ah.